aayadan waxay ishaaraysaa in ballanka u dhaxeeya bani aadamka iyo Allah ay tahay islaamnimo. taa'ibkan oo si aad u faraxsan wuxuu sheegay inuu dareemayo deganaan, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay soo dhaweynta iyo bogaadinta aan kala kulmay mujtamaca islaamiga ah waa mid aad u weyn oo aan la qiyaasi karin noloshayda tan oo kale ima soo marin. wuxuu muujiyay shucuurka ay ku dheehan tahay farxadda iyo reereynta isagoo yiri waxaa la joogaa waqtigii uu iimaanku ku xasili lahaa qalbigayga. tan iyo markii aan faafiyay warka ah inaan islaamay waxaa inboxkayga ku soo dhacay fariimo fara badan oo bogaadin ah. taleefankayguna wuxuu yahay mid aan ka suulaynin inuu soo dhaco mar walba. kumanaan muslimiin ah ayaa u tahniyadeeyey walaalka muslimka ay horay baadiriga u ahaa, halka dadka kiristaanka ah ay dhaleeceeyeen kula tilmaameen nin murtad ah oo diinta kiristaanka ka baxay. Allah ayaa ku mahadsan islaamka kaaga badbaadiyay naarta. soo dhawow walaalkeena muslimka tawxiidka ahow Saciid Cabduladiif. Allah xaqa ha nagu wada sugo. sidaas waxaa yiri mid ka mid ah muslimiinta oo ka jawaab celinayay khabarka uu shaaciyay. si kastoo ay ula dagaalameen diinta islaamka iyo ehelkeeda, haddana waa mid guryahooda ugu sii gelaysa. dowladaha reer galbeedka ayaa dagaalka tooska ah ee ku hayaan muslimiinta waxaa u sii dheer suurad xumeyn iyo in mujtamacooda islaamka ay uga dhigaan mid qalafsan oo dadka caburinaya. iclaamka reer galbeedka waa midka ugu daran ee dagaalka kula jira islaamka iyo ehelkiisa. haddii uusan jiri lahayn iclaamkan xooga badan ee gaalada ayaa la rumaysan yahay in malaayiin qof oo haysta diimaha baadilka ay soo geli lahaayeen diinta xaqa ee islaamka. warbaahinta reer galbeedka ayaa had iyo goor la soo taagan in bulshooyinkooda ay u xumeeyaan islaamka, iyagoo ujeedkoodu ugu weyn uu yahay in bulshooyinkaas aysan islaamin. kumanaan kun oo ruux oo soo galay diinta islaamka ayaa ka sheekeeyey sababta ay muddada dheer ugu jireen gudcurka mugdiga gaalnimada, waxayna sabab uga dhigeen iclaamka reer galbeedka oo suurad xumeynaya diinta islaamka.